waxaan wali ku guda jirnaa barnaamijkii qaybaha kasoo qaybgalayaasha isagu u yeedhidooda waxaan u yeedhaynaa qayb ka mid ah duyuurta kasoo qayb gashay xafladda qur-aanka ahna waxaa weeye dhalinyarta magaalada xubin ka mid ah mudane cabdullaahi ibraahim falyatafadal mashkuura. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كفكويري لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون وحيني سودة جنب الآذن وكتاب فيه ذكركم أي كجرت شرفتين عزقين أفلا تعقلون مركا ما أثير ستان وعقل اللهين وكتاب كان براتان سيدا درت دوحان الله دلنيرت كتابك براتين إمكا محايا هيدي تبنجس قادي إني ددالكو وسيلة من لابان أي همي جوجا أي هم عالية يشان أي هروس عدان أي قرآن كما دام يهضب بلابين سودا مين لهايين علم كلبسي بران لهايين إن يكون دالان علماء وحي ورنجرين كل كاد ورد دقيقة قرآن كمركز آخرين يسد واحد كردك جنة تتفيأ ظلالها ولا تجعلها عبئا عليك waxay oran jireen culimadu markaad quraanka wardiga maalintii aad leedahay quraanka akhrinaysa ama xafidaysi waxaad ka dhigtaa janna beer ama meel aad ku raaxaysanaysa oo harkeeyii iyo biyaheegina lugaha kula jirto kale sida ka dhig oran jireen culimadu idan waxaan leeyahay dhalinyarta waxa inoogu filan maxaa la leeyahay sharaf iyo karaamo dhammaan ardayda quraanka baranaysa iyo macallimiinta baraysaba xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحينيو خير بدن بشر كودن بال شيغيا waxa ugu khayr badan bashar koodan ninka quraanka barta ee dadkana baraya ee ku jira marka dadku waa laba qof quraanka baranayo iyo qof baraya labada handaad ka mid tahay waxay ka dhigan tahay dadka ugu khayr badan baad ku jirtaa wali waxaan ku jiraa xafladeena qaybaheedii waxaan waxa weeye u yeeri doonaa hadalka ugu yeeri doonaa gudoomiyaha gobolka وحاول ومدح جوه الكوثر اللي مدانة محمد عبد الرحمن يسافر وحاول يسير عن إنه مقاشين دون وحنا نفعه إن شاء الله تعالى هذه نعم سلام إنه وين ما يدعين إنه جنك إنه منطقة إنه صغيرة فليتفضل مشكور بكم. ما تنشوا حنقول مني وعدي حفلة قرآن القرآن الكريم كأنها هذه ألبنا لكم أحسن maantigaan xalan imaanay markaas hawshan aad madiin culmadan ay wado waa hawl aan bogaadinayno wayaan quraanku ardaydu waa in quraanka barato maadaama dad muslimiin aan nahay quraankuna quraanka ilaahay wayaan markaas quraanka in la barto ardayda la baro ay dadka waaweyn ay bartaan xitaa kii gelinayna xitaa inuu barto quraanku waa arrin muhiim wayaan waa muqaddas wayaan markaas quraanka in la adkeeyo hawshan ay culmada wadaan xagga ay ka sii wado ومعلني ليه أدي أدبر ما سنتين بدومية دقمة عيال لا صعدة السكان سلوينها والناس waxaan kulley waxaan balyeynaya ardayda mantaqaanaa isaan goortayda fadhida tartankii quraanka kariimka ee jiska shanaad 10 iyo 15 tartanka uu soo gashay arrin aad u fiican weeyaan oo bogaadinaynaa oo barnaamijyadii hadda ka hor jiray weeyaan saa daraadeed intii halkan hor fadhida qalinjabintan saaka ka soo qayb gashay waxaan ilaahay idinka baryayaa in aad noqotaan kuwii quraanka ku adkaada inagu barta dadkana sii bara nabigeena calayhi salaatu wasalaam maruu dardaarmayay wuxuu ahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa 'allamahu an-naas dadka waxa ugu khayr badan qofka ma taqaanay laftiisa wax u barta lafiisa wax u barta dadkana bara marka inaad noqotaan kuwii wax barta quraanka maanta aad ku soo tartanteen jiska shanaad ilaa 15 aad ku soo tartanteen ilaa 30 aad ku sii socotaan dabeetana aad noqotaan kuwa naftiina ku dabaqa dadkana markaa ku ilaalinaad noqotaan baan igula dardaarmaynaa marka waxaa kaloo mahad u celinaynaa dadkii markaa barnaamijkaas ku soo agaasimay ama isku hawlay ee dhexda u xidhay ee weligoodba in hawshan sii wadaan ku sii dhex jira arrintaa waxa weeye waa arrin bogaadin mudan weeyaan waxa weeye intan dambe waxaa xoogga la saarayaa barnaamijkii maadiga ahaa ee xagga dawladda waxbarashadii kale dhinaca kala ahayd baa xoogga la saaraa dadkeena waagoo hore quraanku aad u dhigan jiray oo 6 subaxnimo iyadoo aan la quraacan ayaa la dhigan jiray quraanka oo qofka hadduu cunto soo quraacdo ama wax soo cuno quraanka si fiican ma xifdin kara loo odhan jiray marka barnaamijkii maadaama uu lumay
waxaa maanta aan dareemayaa in barnaamijkii dib uu soo noqday ama la adkaynayo arrintaa marka waa arrin aad u fiican baan qabaa wuxuuna ka socdaa waa 3 degmo weeyaan waa degmada Shinile oo qabalaha gaadka uu ka mid yahay degmada Hadhagaala oo inta u badan qabalayaasha la sheegayay sidoo kale degmada Dambal barnaamijka marka dadka wada waa arrin aad u fiican baan qabaa inay qabalayaashana sii kordhiyaan hadda imika hal qabalaha degmada Shinile ku jira in qabalayaasha kale kulli dhalinyar far badan laga helayana in lagu soo daro si barnaamijka Quraanka Kariimka xifdigiisa ay dadku si adkeeyaan in la sii wado kulli waan soo jeedin lahaa annaga ka degmahan hadaan nahay degmada Shinile waxaan mar walba garab istaagaynaa dadka barnaamijkan abaabulkan ku jira ee bulshada garab istaagaya ina wixii annagu karaakayga la qaban karayna mar walba inaan garab istaagnaa diyaar u nahay marka in halka barnaamijka laga sii wado waan soo jeedin lahaa intiina ka soo qayb gashay waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin aabbayaasha hooyooyinka in dhexda loo xidho barnaamijka weeyaan in badan oo imika inaga maqan baa jirto xaafadaha iska joogta halka markaynu ka noqono in dadka la baraarujiyo oo diinta lagu baraarujiyo xoogga la saaro baan ku dardaarmaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yuusuf maasho mudiirka dugsiga sare ee xaaji cali waa xubinka ku suntan qabsoomidda xafladan qiimaha badan ayaa gabagabadii xafladda qalin jabinta wuxuu si qoto dheer uga hadlay isla markaana uu uga faalooday jaranjaradii ay soo martay fikradda ah in gobolka City laga bilaabo dugsiyo lagu xifdiyo qowlka Eebbe ee Quraanka Kariimka wuxuuna magac dhabay aasaasayaashii dugsiga laga aflaxay wuxuuna carabka ku dhuftay shakhsiyaad ay ka mid yihiin ganacsade Cusmaan Sacad Booni iyo Dr. Umar Barre bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى يا مركب كواد محله مركب حجة وحن هاد علينا مدحضة قبلك سيتي إن لجوكتو وجوه الرئيو قدومي كحجينكو وكحجة قدوميها شنيلة مجلس العلاء مدحضة دي أي كحجان لما أنتو وحن لنا هايسو وهذا wanaagga iyo khayrka aan wadneen muddada ku soo jirnayna ee midhiisii intii ugu horeysay maanta la arkayana
واتهي داوديال وانا انت برنامجكي aan idinka soo diyaarnay xafladda xidhitaanka tartanka xirfadda quraanka gobolka City ee deegaanka Soomaalida oo lagu qabto sanad walba degmad kamida degmooyinka gobolka City. barnaamijka xigeynta aynu ku kulmi doono waxaan idin leeyahay anigoo Zainab Axmed. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.